degmada Waajid ee ka tirsan gobolka Bokool ayaa waxaa laga soo sheegayaa in halka ay ka jirto xaalad adag oo dhanka bulshada iyadoo gabi ahaanba ay xirantay halka lagu xanaaneeyo hooyada iyo dhalaanka oo dadka bulshada u badan ay halkaasi ay tagi jireen iyadoo hooyooyin badan halkaasi ay ku umuli jireen. Wariyad Maxamed Aadan Socdaal oo maalmahan ku sugan degmada Waajid ayaa warkan inoo soo diray. xarunta xanaanada hooyada iyo dhallaanka degmada Waajid ee gobolka Bokool ayaa laga dareemaya burbur iyo dawayari aad u baahsan iyadoo maalin kasta ay yimaadaan bukaano uduro kala duwan qaba oo ka kala imaanaya deegaanada hoos yimaada degmada Waajid ee gobolka Bokool. inkastoo xaruntani ay gacanta ku hayso hay'adda WHC ayna kaalmo dhanka dawada ka hesho hay'adda UNICEF balse aan wada daboolin baahida caafimaad ee ka jirta degmada Waajid. xarunta hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa ku sugnaa xilli aan booqday hooyooyin ka yimi tuulooyinka hoos yimaada degmada Waajid waxaana ay sideen caruur aad u fara badan oo soo dahshaday uduro ay ka mid yihiin neef mareenka iyo cudurrada maqaarka ku dhaca. agaasimaha xarunta xanaanada hooyada iyo dhallaanka Master Aadan Xuseen Ibrahim ayaa war kooban ka siiyay TV-ga dawladda Jubbaland isagoona sharaxay dhibaatada dhanka caafimaadka ee ka jirta xarunta xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee degmada Waajid. daawooyinka supply una helahay daawo oo meena dabool korta ama ka filan MCH maadaama uu isbitaalka magaalada shaqeeyay kan daawada iyo nooc kasta walna filan hay'ado oo mar ku helayna jiraan sida UNICEF tanata kalanta ka WHC UNICEF partnerka way buahaan inta hatiyo qobadayn oo fayda qobadayn laakiin wal dabool korma sababtoo maadaama baahada ee weynta degmadii dhon isbitaalka kaliya oo meena ama MCH ka shaqeeyay kan wali fadana in ni taaqlay ama ni support karay wal alla walay qalab oo may bulshada inta ka hirin oo baahan sida qalabka oo caafimaadka dhigo dhiishadu sida daawooyin nooc kasta may wali oo may codsadaan dhalmada qalabka dhalmada may ini meynaan walwalba oo may sida dawladda federaalka ama dawladda koonfurka ama hay'adaha caalamiga inay ni taaqlayaan wal alla wali baahada degmada ka filan maadaama degmada oo sanata oo may geek in gudaha ila isxaliido walwalba oo lambaahada bulshada inta keenan baahada in helan. Faadimo Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo kamid ah mas'uuliyiinta MCH-ka ayaa ka warantay baahida isbitaalka. hooyooyinka daawada xaqeeda inta ma ahan daawada waa loo heli lahaa wixii yar oo ay u baahan yihiin wixii referral ba aan ahayn oo anaga aan qaban karin hoodii gaajo ay u dhamaanayaan ilmihii iyo hooyadii waxay wada quutaan malinaagtii 5 caruur ama 6 caruur aan barfaasha haysta kuma filno inta dheelitiran male naagaha hadda Waajid ku umulo ama uureyda aad iyo aad ayay u liitaan ciyaal caruurta Waajid horta caruurta la keena MCH-ka kaliya Waajid gudihiisa ma aha xaafadaha kaliya lagama keeno tuulooyinka ku heerarsan oo dhan waa laga keenaa. hadda maanta 5 caruur ama 6 caruur oo ka yimid tuuladan Eleemo ayaan ku qaabilnay aad u ildaran daawooyin u baahan. caruurta badi waxay ka cabanayeen cudurka qaar jeexa pneumonia iyo cudurka shuban biyoodka oo sababay isagana wasaqda oo dhacdo. Waajid ma ogiya tuulooyinka biyaha malaha. degmada Waajid oo go'doonsan muddo fara badan ayaa wali aan helin gargaar dhanka caafimaadka oo dhanka dawladda ahi waxaana shaki aan ku jirin haddii aan loo gurman dadka inay u dhiman karaan xaalad caafimaad daro. Maxamed Aadan Socdaal, Jubbaland TV, magaalada Waajid ee gobolka Bokool.